Wad-salaamantiin asxaabta ku soo dhawaada barnaamijkeena One by One oo ku soo qaadano wararka iyo warbixinada ugu dambeeyay. Waxaan eegi doonaa wararka ugu dambeeyay ee kubadda cagta, sidoo kale dhaawaca ciyaartoyga Reece James iyo xaaladiisa, iyo ciyaartoyga Cristiano Ronaldo ay suuragal tahay inuu ku soo laabto koox ka mid ah kooxaha ka dhisan ama ka ciyaara qaaradda Yurub. Haddii aad geshid muuqaalka, fadlan like, subscribe na channelka si aad ula socotid muuqaalada dambe. Aynu ku bilownay sida ay sheegtay kooxda Chelsea, ciyaartoyga daafaca midig ama dambeedka midig uga ciyaara ee Reece James, kaas oo dhaawac ka soo laabtay ayaa sidoo kale ciyaartoygan waxa uu dhaawac cusub ka soo gaadhay kulanka ugu dambeeyay ee kooxda Chelsea ay la ciyaartay kooxda Bournemouth. Haddaba kooxda Chelsea ayaa kulanka 2-2 kaga badisay kooxda Bournemouth. Ciyaartoyga Reece James ayaa dhaawac ka soo laabtay, sidoo kale ciyaartoygan isla kulanka gudihiisa ayuu kulanka dhaawac uga baxay daqiiqadii 53aad. Haddaba ciyaartoyga Reece James ayaa waxaa la filayaa ama sida la sheegay inuu ka maqnaan doono garoomada iyo sidoo kale kooxda Chelsea muddo lagu qiyaasay 3 ilaa 4 toddobaad, taasoo macnaheedu tahay ciyaartoyga Reece James inuu kooxda Chelsea ka maqnaan karayo muddo hal bil. Haddaba ciyaartoygan ayaa dhaawaca labaad ku laabtay kadib markuu ciyaartoygan dhaawac hore uga soo laabtay dhaawacaas oo ciyaartoygan ku seegay ama dhaawaca dartiisa uu seegay ciyaartoygan koobkii adduunka ee sanadda 2022 ka dhacay waddanka Qatar. Haddaba ciyaartoyga Reece James oo ka mid ah ciyaartoyda ugu muhiimsan kooxda Chelsea ayaa waxaa la filayaa ciyaartoygan inuu ka maqnaan doono ama dhaawac kaga maqnaan doono kulamada soo socda ee ciyaari doonto kooxda Chelsea. waxaana weeye kulanka ugu horeeya kulanka kooxda Nottingham Forest ay la ciyaari doonto kooxda Chelsea, kaasoo ka dhici doona garoonka kooxda Nottingham. sidoo kale waxa uu ka maqnaan doona ciyaartoyga Reece James kulanka ay kooxda Chelsea ku booqan doonto kooxda Manchester City garoonkeeda ama Etihad Etihad Stadium. isla kulanka ku xiga ayaa waxay la ciyaari doontaa kooxda Manchester City kulanka FA Cup-ka oo ay wada ciyaari doonaan kooxaha Manchester City iyo sidoo kale kooxda Chelsea. kulanka kale ama kulanka saddexaad, kulanka afraad ee ciyaartoyga Reece James seegi doona ayaa waxa uu yahay kulanka Fulham, waxaana ku xiga kulanka Crystal Palace. ugu dambeyntii ciyaartoygan waxa uu seegi doona ama kulanka kulamada ugu muhiimsan ee uu seegi doono waxaa ka mid ah kulanka ay kooxda Chelsea ku booqan doonto garoonka kooxda Liverpool ee Anfield. haddaba kadib markii uu dhaawaciisu soo laabtay ama mar kale uu dhaawac khatar ah soo gaadhay ciyaartoyga dambeedka midig uga ciyaara kooxda Chelsea ee Reece James ayaa hadda waxaa la sheegay kooxda Chelsea iyo sidoo kale mas'uuliyiinta Chelsea inay qorsheynayaan sida ay ula soo wareegi lahaayeen ciyaartoy u ciyaari lahaa ama ciyaartoy kula tartami lahaa ciyaartoyga Reece James dambeedka midig, sidoo kale ciyaartoy ka ciyaari lahaa ciyaartoyga Reece James marka uu maqan yahay booskiisa. waxaana la sheegay inay jiraan 2 ciyaartoy kuwaas oo ugu cadcad oo ay kooxda Chelsea la soo wareegi karto ama ay yihiin ciyaartoyda la qorsheynayo inay buuxiyaan booska ciyaartoyga Reece James. haddaba ciyaartoyda waxaa ka mid ah ciyaartoyga dambeedka midig uga ciyaara xulka qaranka Croatia iyo sidoo kale kooxda Celtic ee Juranovic. sidoo kale isaguna waxaa jira ciyaartoy ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican qaaradda Yurub ama dambeedyada midig ee ugu fiican qaaradda Yurub, gaar ahaan horyaalada 5 ee ugu waaweyn qaaradda Yurub. haddaba ciyaartoygaas ayaa sidoo kale ciyaartoyga ugu horeeya ee diiradda u saaran kooxda Chelsea, waana ciyaartoyga dambeedka midig uga ciyaara kooxda Inter Milan iyo sidoo kale xulka qaranka Netherlands ama Holland, kaas oo ah ciyaartoyga Dumfries oo la filayo inuu noqon karayo ciyaartoyga bedeli lahaa ama ciyaartoyga ay kooxda Chelsea ku soo xoojin lahayd dambeedka midig ee kooxda. isla kooxda Chelsea ayaa si rasmi ah u shaacisay inay la soo wareegtay ciyaartoyga Dantlod Fofana kadib markii ay kooxda Liverpool sii shaacisay inay la soo wareegtay ciyaartoyga Gakpo. ayaa sidoo kale kooxda Chelsea oo maalmahan wadahadal kula jirtay ciyaartoyga Fofana ayaa wax la sheegay ama ay kooxda si rasmi ah u shaacisay inuu ciyaartoygan ku soo biiri doono kooxda Chelsea. haddaba kooxda Chelsea ayaa doonaysay inay soo xoojiso khadka weerarka kadib markii uu dhaawac khatar badan soo gaadhay weeraryahankii saddexaad ee kulanka kaasoo ahaa Armando Broja. haddaba kooxda Chelsea ayaa si rasmi ah u shaacisay inay la soo wareegtay ama ay heshiis la gaadhay kooxda Molde ee ka ciyaarta waddanka Norway, kaasoo ay kala soo wareegeen ciyaartoyga David Datro Fofana. weeraryahankan Fofana oo jira 20 sano ayaa waxa uu kooxda Chelsea ku soo biiri doona marka uu furmo suuqa kala iibsiga bisha January, gaar ahaan bisha 1 January ee sanadda 2023. haddaba kooxda Chelsea ciyaartoygan waxa uu ku qaadan doonaa ama mushaharkiisa haddaynu eegno, ciyaartoygan mushaharkiisu waxa uu noqon doonaa 250,000 oo euro toddobaadkii. Fofana ayaa waxa uu la mid noqon doonaa ciyaartoyda ugu mushaharka sareeya kooxda Chelsea, kuwaasoo kale ah ciyaartoyda Wesley Fofana, Marco Correa, Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, Pierre-Emerick Aubameyang iyo sidoo kale ciyaartoy kale. haddaba ciyaartoyga Fofana ama sidoo kale kooxda Chelsea ayaa markii ugu horeysay saxiix samaysay tan iyo markii xilka laga qaaday tababarihii hore ee kooxda Chelsea ee Thomas Tuchel, loona magacaabay tababaraha cusub ee kooxda Chelsea Graham Potter. ciyaartoygan Fofana ayaa waxa uu ka mid ahaa ciyaartoyda ugu fiicneed horyaalka waddanka Norway, oo ciyaartoygan xilli ciyaareedkan waxa uu u dhaliyay kooxda uu ciyaaro
gaar ahaan markii uu ciyaaray horyaalka waddanka Norway 17 kulan 17 gool ayaa waxa uu ku dhaliyay ciyaartoygan 29 kulan haddii ay noqoto kulamadii u dhexeeyay horyaalka iyo sidoo kale koobabka. haddaba ciyaartoygan ayaa waxa uu ka soo baxay akademiyada kooxda, sidoo kale ciyaartoygan marka uu sanadii 2021 ku soo biiray kooxda koowaad waxa uu ka mid noqday ama waxa uu noqday ciyaartoygan xidiga koowaad ee kooxda. Fofana ayaa dhammaan markii la isku geeyo kulamadii uu ciyaaray kooxda uu ciyaari jiray ee ka ciyaarta waddanka Norway 24 gool ayuu dhaliyay, sidoo kale waxa uu caawiyay 10 gool oo 24 gool iyo 10 gool. ciyaartoygan waxa uu ka awooday inuu kooxda ugu dhaliyo ama uu ku lug lahaado 34 gool 35 gool oo uu ciyaaray kooxda uu ciyaari jiray ee ka dhisnay waddanka Norway. isla horyaalka Ingiriiska ee Premier League kooxda Manchester City inkastoo uu sheegay tababaraheeda Pep Guardiola inaanay kooxda Manchester City la soo wareegi doonin ciyaartoy bisha January, ayaa haddana waxaa jiray warar sheegaya inay kooxda Manchester City isku diyaarinayso xilliga ay iibin lahayd ama ay kooxda ka diri lahayd ciyaartoyga Jack Grealish. haddaba waxaa la sheegay ciyaartoyga Jack Grealish inay doonayso kooxda Manchester City inay ciyaartoygan kaga soo bedelato kooxda AC Milan xidigeeda Rafael Leao. Manchester City iyo mas'uuliyiinta kooxda ayaa waxay qorsheynayaan inay ciyaartoyga Jack Grealish kaga soo bedeshaan kooxda AC Milan weeraryahankeeda Rafael Leao. kooxda Manchester City ayaa isku dayi doonta inay la soo wareegto ciyaartoyga khadka weerarka uga ciyaara kooxda AC Milan iyo sidoo kale xulka qaranka Portugiiska, inkastoo ciyaartoygan ay sidoo kale kooxo kale oo ka ciyaara horyaalka Ingiriiska ee Premier League ayaguna u dagaalamayaan ay ka mid yihiin kooxaha ugu cadcad ee ciyaartoygan dagaalka ugu jira ama tartanka adag ugu jira kooxda Chelsea iyo sidoo kale kooxda Arsenal oo ah kooxda uu tartanku ka dhexeeyo kooxda Manchester City haysana hogaanka Ingiriiska ee Premier League. haddaba waxaa la sheegay inay suuragal tahay kooxda AC Milan inay arrinka aqbasho, inkastoo aanay caddayn inay arrinka aqbali doonto haddana kooxda AC Milan maadaama ciyaartoyga Jack Grealish ay ka cabsi qabaan mushaharkiisa oo aad u sarreeya iyo sidoo kale da'diisa oo aad u weyn. ciyaartoyga Jack Grealish hadda toddobaadkii waxaa ka qaataa mushahar lagu qiyaasay kooxda Manchester City 300,000 euro, isagoo ciyaartoygiina jira 27 sano, kaasoo ay kooxda Manchester City xagaagii sanadii 2021 ay 100 milyan oo euro kula soo wareegtay ciyaartoygan, kaasoo ay kaga soo wareegtay kooxdiisa hore Aston Villa. haddaba ciyaartoygan Jack Grealish tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda Manchester City sanadii 2021 ciyaartoygan waxa uu awooday inuu dhaliyo 7 gool oo kaliya, sidoo kalena uu caawiyo 4 gool oo kaliya, isagoo ciyaartoygan u ciyaaray kooxda Manchester City 56 kulan. haddaba ciyaartoyga Jack Grealish ayaan ahayn ciyaartoy ka soo baxay ama ciyaartoy ugu yaraan soo bandhigay inuu u qalmo qiimaha ay kooxdu ka soo bixisay, kaasoo ahaa 100 milyan oo euro. oo ciyaartoyga Jack Grealish kooxda Manchester City tan iyo markii uu ku soo biiray sanadii 2021 waxa uu caawiyay 4 gool oo kaliya halka uu 7 gool dhaliyay oo goolasha uu ku lug leeyahay ciyaartoyga Jack Grealish tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda Manchester City ayaa waxay gaaraysaa 12 gool oo kaliya, inkastoo ciyaartoygan uu ciyaaray kulamo gaaraya 50 kulan. haddaba dhinaca kale kooxda Manchester City oo ka faa'iideysanaysa ciyaartoyga Rafael Leao oo mushaharkiisa uu ka dhiman yahay 18 bil oo kaliya ayay doonaysaa kooxdu inay la soo wareegto, sidoo kalena ciyaartoygan ay ka ciyaarsiiso ama ay keento horyaalka Ingiriiska ee Premier League. Rafael Leao oo jiray 23 sano ayaa waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda aadka u doonayaan, sidoo kalena waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda ugu awoodda weyn ee ka ciyaarta garabka bidix horyaalada ugu waaweyn qaaradda Yurub. sidoo kale ciyaartoygan waxa uu ku guuleystay xilli ciyaareedka hore ciyaartoyga ugu fiicnaa horyaalka waddanka Talyaaniga ee Serie A-da. haddaba ciyaartoygan Rafael Leao ay isku day doontaa kooxda Manchester City haddii ay suuragal tahay inay ku qanciso kooxda AC Milan inay kaga bedelato ciyaartoyga Jack Grealish, sidoo kalena inkastoo ciyaartoygan ay kooxo kale tartan ugu jiraan sida kooxaha Arsenal iyo kooxda Chelsea. haddaba sidoo kale waxaa jiray ciyaartoyga Rafael Leao in iyaduna la sheegay inay doonayso kooxda Manchester United oo ka mid ah kooxaha aadka u doonaya inay la soo wareegaan weeraryahano maadaama uu kooxda ka tegay weeraryahankii kooxda ee Cristiano Ronaldo, sidoo kalena ay kooxda Liverpool kala horwareegtay weeraryahanka ay isha ku haysay kooxda Manchester United, kaasoo ahaa weeraryahankii kooxda PSV iyo sidoo kale xulka qaranka Holland ee Gakpo. haddaba kooxda Manchester City oo isku dayday inay la soo wareegto mar hore ciyaartoyga Joao Felix, inkastoo ciyaartoygan oo aad u sarreeyay mushaharkiisu aanay kooxdana hadhow awoodi karin haddii ciyaartoygan ama kula soo wareegto inuu si rasmi ah ula wareegto marka uu dhammaado waqtiga amaahdu, ayaa hadda la sheegay kooxda Manchester United in iyaduna ku jirto ama ay ku soo biirtay kooxaha u tartamaya ciyaartoyga Rafael Leao. sidoo kale sida la sheegay ciyaartoyga Cristiano Ronaldo ayaa wakiilkiisa Jorge Mendes ayaa waxa uu cadeeyay inay joogsadeen wadahadalka u dhexeeyay isaga iyo sidoo kale kooxda Al-Nassr ee ka ciyaarta waddanka Sacuudiga. haddaba kooxda Al-Nassr oo ka mid ahayd kooxda kaliya ee bandhig aad u sarreeya oo soo bandhigtay ciyaartoyga Cristiano Ronaldo, sidoo kale la sheegay in wadahadal u dhexeeyay waayihii ugu dambeeyay ciyaartoyga iyo sidoo kale kooxda Al-Nassr ayaa hadda waxa uu sheegay wakiilka ciyaartoyga Cristiano Ronaldo ee Jorge Mendes
inuu dhammaaday ama inuu joogsaday wadahadalka u dhexeeyey ciyaartooyga Cristiano Ronaldo iyo sidoo kale kooxda Al Nassr kaasoo ku saabsanaa ciyaartooygan inuu ku biiro kooxda Al Nassr. Haddaba waxaa la sheegay sababta uu joogsaday wadahadalka u dhexeeyey ciyaartooyga Cristiano Ronaldo iyo sidoo kale kooxda Al Nassr inuu yahay kadib markii uu soo gaaray wakiilka ciyaartooyga Cristiano Ronaldo ee Jorge Mendes dalab ka yimaaday koox ka mid ah kooxaha ka ciyaarta koobka Champions League iyo sidoo kale qaaradda Yurub. iyaguna waxaa jiray warar sheegay sida uu sheegay mid ka mid ah warbaahinta gaagdhow kooxda Real Madrid wiilka yar ee uu dhalay Cristiano Ronaldo ee Cristiano Ronaldo Jr. ayaa la sheegay inuu ku soo laabtay akademiyada kooxda Real Madrid. sidoo kale wararka qaar waxay sheegeen in kooxda soo dalbatay ciyaartooyga Cristiano Ronaldo ay tahay kooxdiisii hore ee Real Madrid. haddaba ciyaartooygan sida la sheegay maadaama uu wiilkiisa Ronaldo Jr. uu ku soo laabtay akademiyada Real Madrid inkaas oo ay u qaateen saxafiyiinta qaar in maadaama uu wiilkiisa ku biiray akademiyada kooxda Real Madrid ama uu ku soo laabtay ay taasi ka dhigan tahay inuu joogi doono ciyaartooyga magaalada Madrid. sidoo kalena arrinkaas waxay ka sii cadaysteen inuu ciyaartooyga Cristiano Ronaldo ay tahay kooxda u soo bandhigtay dalabka kooxdiisii hore ee Real Madrid. haddaba ma jirto ilaa hadda dalab rasmi ah ama wax rasmi ah oo ay kooxda Real Madrid ka soo saartay iyo sidoo kale wakiilka ciyaartooyga ee Jorge Mendes inuu sheegay kooxdii doonaysay ama kooxda soo dalbatay ciyaartooyga Cristiano Ronaldo, balse arrinka la huba ayaa ah inuu sheegay wakiilka ciyaartooygu inuu joogsamay wadahadalka u dhexeeyey ciyaartooyga Cristiano Ronaldo iyo sidoo kale kooxda Al Nassr oo ahayd kooxdii ugu caddeed ee ciyaartooyga wadahadalka kula jirtay, halka ay kooxda Manchester United raadinayso weeraryahan ama lambar 9 kadib markii uu ciyaartooyga Gakpo ku biiray kooxda Liverpool. haddaba kooxda Manchester United sida ay sheegeen qaar ka mid ah warbaahinta waddanka Ingiriiska kooxda kadib markii uu ka tagay ciyaartooyga Cristiano Ronaldo sidoo kalena ciyaartooyga ay doonayeen in Gakpo uu ku biiray kooxda Liverpool ayay hadda waxay baadikoob ugu jiraan kooxda Manchester United inay la soo wareegaan weeraryahankii bedel u noqon lahaa ciyaartooyga Cristiano Ronaldo. haddaba kooxda Manchester United kadib markii uu ka tagay ciyaartooyga Cristiano Ronaldo iyo sidoo kale ciyaartooyga Gakpo uuna ku biiray kooxda Liverpool ay hadda waxaa la sheegay kooxda Manchester United oo raadinaysa ciyaartooyga ciyaare lambar 9 inuu yahay ciyaartooyga Alvaro Morata oo ciyaartooyda saaran miiska mas'uuliyiinta kooxda Manchester United. kooxda Manchester United ayaa hadda waxa uu saaran ama ciyaartooyda isha ku haysa waxaa ka mid ah weeraryahanada Alvaro Morata Arnfit. sidoo kale kooxda Manchester United oo isku day doonta inay la soo wareegto ciyaartooyga Joao Felix inkastoo ay ku adkaan doonto ciyaartooyga Joao Felix maadaama ciyaartooygan aanay kooxda hadhow si rasmi ah ula wareegi doonin. sidoo kale kooxda Atletico Madrid oo ciyaaro ciyaartooyga Alvaro Morata ayaa kooxdu kadib markii ay ka soo laabatay koobka adduunka waxaa jiray inay weeraryahano badan haysatay, balse ciyaartooyga Matheus Cunha ayaa waxa uu ku biiray kooxda Wolverhampton. sidoo kale ciyaartooyga Joao Felix ayaa la filayaa inuu isaguna suuragal tahay inuu ka baxo bisha January kooxda Atletico Madrid. haddaba kooxda Atletico Madrid ayaa weeraryahanadeedu waxay ka koobnaan doonaan Alvaro Morata, Correa, Griezmann. sidoo kale kooxda Atletico Madrid waxay isku dayi doontaa inay la soo wareegto ciyaartooyga Enes Unal ee u ciyaara kooxda Getafe, sidoo kale weeraryahanada kooxda Borussia Mönchengladbach ee Thuram iyo weeraryahanka kooxda Real Betis ee Iglesias. haddaba kooxda Manchester United ayaa isku dayi doontaa haddii ay la weydo ciyaartooy kale inay la soo wareegto ciyaartooyga weerarka uga ciyaara kooxda Atletico Madrid ee Alvaro Morata. ugu dambeyntii haddaynu eegno kulamada la ciyaari doona caawa waxaa caawa soo laaban doona horyaalka waddanka Faransiiska ee Ligue 1 inkastoo jiray kulankii furitaanka la ciyaaray oo kooxda Monaco ay ciyaartay kagana badisay kooxda Auxerre 3-2. haddaba kooxaha kala ciyaari doona ama kulamada ugu muhiimsan sidoo kale iyaguna waxaa jira kulamo la ciyaari doona horyaalka Ingiriiska ee Premier League oo waddanka Faransiiska kooxda PSG ayaa la ciyaari doonta kooxda Strasbourg oo kooxda PSG ayaa soo laaban doonta waxaana dib u furmay horyaalka waddanka Faransiiska ee Ligue 1. sidoo kale iyaguna waxaa ciyaari doona kooxda Manchester City oo kooxda Manchester City ayaa kulankii ugu horeeyay ciyaari doonta kadib markii ay kooxdu ciyaartay kulankii koobka FA koobka EFL Cup-ka ama Carabao Cup-ka kaasoo ay kooxda Liverpool 3-2 kaga badisay, balse hadda Manchester City waxay ciyaari doontaa kulanka ugu horeeyay horyaalka Ingiriiska ee Premier League kadib markii laga soo laabtay koobka adduunka. waxaana kooxdu booqan doontaa garoonka kooxda Leeds United ee Ellen Road oo ay la ciyaari doonto kooxda Leeds United.